haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtu waa weynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallahi thumma wallahi yal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aan uga cusubtahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa isku dhacay isla markaasina weerar xooggan kadib ciidamada Somaliland oo saldhig muhiim ah kala wareegay maamulka Puntland isla markaasina xaalad aad u cakiran ayaa ka jirta halkaasi saldhigan oo horey Puntland u haysatay ayaa iminka waxaa tignika aad u fara badan oo reer Somaliland ay kala wareegeen warar aan ka helayno deegaanka Boocame ee gobolka Sool ayaa waxa ay sheegayaan ciidamo ka tirsan Somaliland ay goor dhaweed la wareegeen saldhiga deegaankaas oo ciidamada Puntland ay horey ugu hayeen gacantaasi isla markaasina ciidan fara badan uu taagnaa isla markaasina maanta si aad loola wareegay saldhiga Boocame ayaa waxa gacanta ku hayay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo ay kala wareegeen ciidamo kale oo daabacsan Somaliland iyaguna horey uga tirsanaa ciidamada maamulka Puntland sida warbixinta lagu sheegay ciidamada maanta la wareegay saldhiga Boocame ayaa waxay calanka Somaliland ka taageen gudaha saldhiga waxaana horkacayay ciidamadaasi sida la sheegay saraakiil caan ka ah deegaanada maamulka Puntland ayaa horkacayay warbixinta lagu yiri wararka aanu helayna ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamada la wareegay saldhigaasi uu maamulka Somaliland ku soo xoojiyay ciidamo kale oo aad u fara badan gaadiidka dagaalkana sida ay u kordhiyaan awoodda ciidamada la wareegay saldhiga maadaama laga yaabo Puntland inay soo rogaal celiso isla markaasina saldhigaasi ay dib loo wareegto si kastaba ha ahaatee tignika aad u fara badan iyo ciidamo aad u fara badan ayaa maamulka Somaliland ku soo xoojiyeen saldhigan Boocame isla markaasina waxay doonayaan haddii ay maamulka Puntland dib u soo rogaal celiyaan isla markaasina weerar xooggan ay soo qaadaan ee halkaas iskaga babacdhigaan ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ku aadan saldhigaasi ay kala wareegeen ciidamada Somaliland oo u kala dhaxeeyo dagaal dhanka xuduudaha isla markaasina si weyn halkaasi isku xasuuqeen si kastaba ha ahaatee ciidamada Somaliland iyo Puntland ayaa mararka inta ugu badan xuduudda isku haysta isla markaasina labada dhinac aad isugu digi jiray bilihii la soo dhaafay ama sanadkii la soo dhaafay ee markii halkaasi weerar xooggan ay ka dhaceen sidoo kale waxaa jira ciidamo ka soo kala goosanaya labada dhinac oo isla markaasina la soo bandhigayo ilaa iyo iminka wax hal ah lama gaarin Cabdiweligaas iyo Muuse Biixi wax hadal ah kama gaarin sidoo kale madaxweyne Dani iyo madaxweynaha Muuse Biixi ilaa iminka wax hadal si rasmi ah kama gaarin maadaama la isku haysto waxa soo badanaya dagaalada ka dhanka ah in ay halkaasi xuduudaha iyo magaalooyinka ay kala qabsadaan isla markaasina la rajaynaya in halkaasi colaada ay dhamaato si kastaba ha ahaatee halkaan naga daawanaysa waa calansida media fadlan nala joog dhinaca kale ergeyga qaramada midoobay ee geeska Afrika oo markii ugu horeysay magaalada Muqdisho yimid isla markaasina ninkaan oo ah nin Afrikaan ah ergeyga gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan geeska Afrika Master Onanka ayaa dhawaan booqasho ku yimid magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay socdaalkiisii Soomaaliya xilligii uu soo galayay lama sheegin laakiin xilligii uu bixiyay ayaa la sheegay maadaama uu ka cabsaday in halkaasi waxyeello ay soo gaarto Master Onanka ayaa sheegay in ujeedkiisu ahaa mid ku indhayn ah xaaladda guud ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Soomaaliya amniga iyo arrimaha doorashooyinka maadaama doorashooyinka ay soo dhow yihiin asigoona la fadhiistay dadka guddoonka doorashooyinka soo socdo waxa uu tagay ayuu yiri Muqdisho anigoo dareemaya rajo ay ku dheehan tahay awood dadka iyo dawladda si ay uga gudbaan caqabadaha hadda jira ayuu yiri ergeyga gaarka ah ee geeska Afrika sidoo kale wakiilka qaramada midoobay ee geeska Afrika ayaa xusay in intii uu joogay Muqdisho kulamo uu la qaatay mas'uuliyiinta kala duwan oo heer qaran ah iyo kuwa caalami ah waxaana uu kala hadlay amniga doorashooyinka horumarka iyo gargaarka bini'aadanimada ee magaalada Muqdisho ergeyga qaramada midoobay ee geeska Afrika ayaa si gaar ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yarey kala hadlay arrimo ku aadan doorashooyinka soo socda iyo kalsoonida lagu qabo inay noqoto mid hal qof oo cod ah isla markaasina dadka dhan ka wada farxiso laakiin aysan noqonin mid isla markaasina dhinac u janjeerto ay noqoto mid cadaalad loo qabto doorashooyinka waxay noqon karaan geedi socod dib u heshiisiin qaran laakiin waxay sidoo kale horseedi karaan khilaafka sidaasi daraadeedna howlaha doorashada waa inay taageeraan qaramada midoobay ayuu yiri Master Onanka si kastaba ha ahaatee Master Onanka ayaa si weyn ula shaqayn doona guddiga doorashooyinka ugu dambeyntii wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay horumarka ka jira dalka wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu sanadka 2020 Soomaaliya uu yahay mid muhiim ah isla markaasina la doonayo inay halkaasi ka dhacdo doorasho cadaalad ah taasina ay noqon doonto inay Soomaaliya tilaabsatay si kastaba ha ahaatee dardaaran culus ayuu siiyay isla markaasina dib ayuu u laabtay dhinaca kale xildhibaan faqi galmudug waxay ku socotaa wado ay ku dhismi karaan laba maamul isla markaasina fowdo ay noqon kartaa waa sidii uu ku sheegay magaalada Kismaayo camal
xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa ka hadlay xaaladda maamulka galmudug iyo ololaha siyaasadeed ee ka kala socda magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo. fiqi ayaa sheegay in galmudug ay hadda ku socoto waddo ay ku dhismi karaan laba maamul oo isdiidan haddii uusan tanaasulin madaxweyne xaq, ayuu yidhi. sidoo kale wuxuu ku baaqay in loo turo shacabka ku dhaqan gobolada galmudug iyo mudug si ay u helaan hal maamul oo samata bixin kara islamarkaasina nin aad u wanaagsan oo heli kara. haddaba waxa uu bartiisa facebook rasmiga ku soo qoray runtii galmudug waxay ku socotaa waddo ay laba maamul oo isdiidan ay ku dhismi karaan haddii uusan tanaasulin madaxweyne xaaf, waxaana dalbanaya ayuu yidhi in shacabka loo diro oo hal maamul loo dhiso, ayuu yidhi axmed macalin fiqi oo ka tirsan xubnaha golaha baarlamaanka federaalk soomaaliya aadna u mayal adag islamarkaasina si weyn uga soo horjeedo hanaanka ay dowladda federaalk soomaaliya wax u wada garabna la ah xasan sheekh maxamuud. ololihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka galmudug ayaa ka socda gudaha magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo ay horboodayso dowladda federaalk soomaaliya, halka gaalkacyo uu ka socdo olole kale oo u horkacayo madaxweyne ducaale geyle xaaf islamarkaasina uu doonayo inuu ku dhisa halkaasi galmudug cusub. halkaasi ayay ka qurman tahay bahasha, islamarkaasina dhuusamareeb howl ayaa ka socoto, gaalkacyan howl ayaa ka socoto. lama ogo sida uu xalku noqon doono, balse waxay ay dadka ordoosa ama siyaasadda ka digaya in laba maamul oo iska soo horjeeda ay ka dhismaan deegaanada galmudug ayaa si weyn loogu soo horjeeda. si kastaba ha ahaatee magaalada dhuusamareeb ayaa la liliicaysa arrimaha doorashooyinka, islamarkaasina waxaa jira musharaxiinta ugu badan, waxaana la filayaa in labada beri ee soo socda la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka, taasi oo lagu kala bixi doono haddii guddoomiyaha garabka mucaaradka uu guulaysto. halkaasi waxay ku noqon doontaa nabad iyo nolol inay aad ugu jabaan islamarkaasina ay ku khasaaraan. haddii ay farmaajo iyo tiimkiisa ay guulaystaan, waxaa halkaasi kusoo bixi doono daktarka xildhibaanka ah islamarkaasina garabka la ah ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo. taasi waxay noqon doontaa inay ayagana ku guulaystaan maadaama guddoomiyaha baarlamaanka lafdhabar u yahay xildhibaanada madaxweynaha u codayn doono, ayaa layidhi. si kastaba ha ahaatee xaaladda galmudug ayaa iminka fool ah, waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in lagu kala baxo guddoomiyaha kadibna madaxweynaha lagu kala baxo. si kastaba ha ahaatee warar xiisada ayaa noo soo socda, daawada nala joog oo daawa
haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyn yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo والله ثم والله والله ثم والله